kusoo dhawaada daawadayaal FCTV barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay beesha caalamka oo la yaabtay beentii uu ka horjeediyey madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliland been la yaab leh oo cajaa'ib ku noqotay ayuu wuxuu la hor yimid golihii beesha caalamka uu kula hadlay Nairobi khudbad ayadoo dhan aad moodid qof marqaansan inuu soo qoray ayuu ka hor aqriyay beesha caalamka wuxuu sheegay oo been uu ka sheegay dhowr qodob oo waaweyn qodobka koowaad oo beenta ka sheegay waxay tahay inuu yiri beesha caalamka anaga baryo uguma neemaan waxna ugama baahnin anaga isku filan taasoo ay haddeer wadaan beesha caalamka horena ay u wadi jireen kaalmada ay siiyaan Somaliland oo Soomaaliya loo soo marsiiyo qaarna ay si toos ah u siiyaan waxay kaloo ceeb ay ku noqotay beesha caalamka ay aad uga argagaxeen hadalkii ahaa idinkumaana imaanin inaan idin sujuudno oo idin barino waxaan kugu nimid inaan maaragtay aan maaragtay wax wada share garayno oo wax wada yeelano investment inaan maalgashi samaysataan macnaha nin wuxuu iska dhigay dal weyn oo balaayaha ka dhacday oo dhaqaale haysta iska dhigay wuxuuna ceeb ka dhigay dadka adduunka ku nool oo beesha caalamku ay kaalmayso beesha caalamka dadka ay kaalmada ay siiso in lagu caayo waxay u aragtaa qalad wuxuu ku caayay beesha caalamka kaalmada ay bixinaysa ayuu wuxuu ka dhigay mid caaya oo sujuud in loo soo bawgareeyo oo la baryo inay maaragtay wax ku bixiso waxay la noqotay argagax way yaabeen beesha caalamka waxay yiraahdeen war ninkan muxuu ahaa maaragtay ninkan sharafteena meel uga dhacaya bini'aadanka aan kaalmada siinana aflagaadeynaya oo maaragtay ka dhigaya dadka kaalmada qaato dhan inay beesha caalamka u sujuudaan waa wax la yaab leh aan aragna hadalkiisa At that time, I stated clearly that Somaliland had not come before the international community with a begging bowl. I reconfirm that position today. We seek partnership, not dependency. We seek investment, not charity. أنا كلمة إن كمان إيمان إن إذا سجودنا أو إذا برينا إذا كمان إيمان واحد يكون من إن هذا ماركتي investment قشطان وده كنا مال قشطان dadku hor fadhiyo maalgashadayaal maaha dad wax maalgashta maaha dadku hor fadhiyo beesha caalamka waa kaalmo bixiyayaal dadka wadamada ay ka jaban tahay caawiya weeye waa United Nationskii kuwii u qaabilsanaa inay maaragtay dalalka liita garab istaagaan maalgashadayaal maaha haddana ayagii maalka bixinayay oo kaalmada bixinayay ayuu kaalmadoodii wuxuu ku sheegay mid loo sujuudo oo baryo iyo sujuud lagu qaato oo inay wax ku bixiyaan in loo sujuudo maahane inay waxba bixin wuxuu aflagaadeeyay dhammaan wadamada kaalmada la siiyo adduunka oo ay u badan tahay wadamo fara badan oo Afrika kuwa Yurub ah kuwa maxaa la yiraahdaa Asia wadamo fara badan oo adduunka ayaa kaalmo la siiyaa kuwaas oo dhan uu aflagaadeeyay wuxuu ka dhigay inay maaragtay inay sujuudaan oo baryo taban markii maaragtay lacag maaragtay kaalmo la siinayo waxay ku noqotay argagax iyo la yaab ayay ku noqotay Relations founded on mutual respect, shared interests and common responsibilities. Excellencies, 1 year and 7 months later I stand before you to account for what has been achieved. Among the most consequential developments during this period has beesha caalamka maalgashtayaal maaha maalgashtayaasha adduunku waa different nimankan uu hor taagan yahay waa niman maaragtay u jooga inay maaragtay adduunka wadamada ay ka jabantaa caawiya una aflagaaday dhanka kale wuxuu kaloo been ka sheegay inuu yiri maamulka waqooyi bari ciidan ka tirsan oo 6,000 oo askari gaaraya ayaa is soo dhiibay oo isku soo dhiibay maamulka Soomaaliland baro fiirso beenta inta leeg fully trained. Priorities of my government was the restoration of peace in Eastern Seoul. At that time, approximately 6,000 militia members had voluntarily laid down their arms
and entered a government-led program of demobilization and military integration. I am pleased to report that this process has now been successfully completed, and those former combatants macnaha wuxuu leeyahay 6,000 oo askari oo waqooyi bari Laascaana ka timid ayaa Soomaaliland isku soo dhiibtay fiir beenta uu la horfadhiyo beesha caalamka macnaha marka been sheegaysa xataa mid wuxuu ka dhigayaa nimankaan is ogaanayn niman Soomaaliya la socda oo satellite haysta oo newska ka warhaya oo maaragtay turjubaanna leh oo qaarkood af Soomaaliga yaqaanaan ayuu wuxuu leeyahay 6,000 oo askari oo qabanay oo tababar furnay maaragtay waa ceeb weyn ku dhacday maaragtay beentiisa la ogaaday cid dambe oo aamini doontaan male dhanka kale wuxuu sheeganayaa in maaragtay uu dawlad weyn yahay tababar ay siiyeen ciidankii soo dhiibay maleeshiyada ahaa ee ciidamada beesha dhulbaanta ka timid oo deegaanada Laascaana ka yimid oo 6,000 inuu tababar siiyey kadibna qalabeeyay kadibna ku daray ciidanka Soomaaliland macnaha bal u fiirso sida la soconana 7 nin oo saarneed gaari yar oo jaqaf ah oo nooha ayaa u tagtay Soomaaliland iyo hal gabar oo maaragtay waqooyi bari ka tagtay oo xildhibaan ahayd waa 8 qof wuxuu ka dhigay 6,000 qof oo askar ah oo tababar loo furay oo caafimaadkooda la habeeyay oo darees iyo hub la siiyey ciidankan lagu daray beenta intaa la eg madaxweynuhu sheeganaya marka haddana wuxuu ku leeyahay waxaan kala celinay beelo isdirirayaan maaragtay nabad dhex dhignay wuxuu kaloo sheeganayaa oo beenta ah in dowladdiisu ay dowlad nabad tahay oo nabad wax ku wado waana asagii weerar ku qaaday deegaanada maaragtay xabadda la dhacayay meesha la boorama iyo dadka leynayay dhanka kale asagaa waxaa laga haystaa 600 oo askari oo Laascaana ku xiran oo saraakiishii iyo generaaladii Soomaaliland ayaa meesha ku xiran markaas wuxuu leeyahay 6,000 isku soo dhiibtay haddii 6,000 is dhiibto maxaa harayba ciidankii baxayay markaas meesha iska qabsado bal beenta intaa la eegu sheegayo wuxuu moodaa beesha caalamka inaan saxabaysa ogeyn waa waxyaabihii 92 la qoran jiray kaamkan waxaa joogta 100,000 oo qof ee lacag nagu siiya sidoo kale u moodaa in beesha caalamka maaragtay wax ku bixinayso haddana mar kale wuxuu leeyahay annaga baryeedan kumaan imaan totally wajigu iska haleeyay Soomaalinimadu ceebeeyay maaragtay wax maaragtay la soo koobi kara ma uu ugu dhaqmo of republic and integrated into Somaliland National Army. Shortly thereafter, a separate conflict emerged in our region between two major communities. Through sustained government engagement, traditional leadership and inclusive dialogue. wuxuu leeyahay laba qabiil ayaan maaragtay ishaysatay ayaan kala dhex galnay si maaragtay odayaasha dhaqanka iyo wax walba aan u adeegsanay waa hagaajinay wuxuu kaloo yiri waxaan gaarnay heer annaga dhaqaaleena isku filaano wadooyin aan dhisano oo wax qabsano sida la socono dawladda Soomaaliya ayaa haddeer faraha ku haysa oo maanta maalin dhaweyd la saxiixay ee wada laga dhisay magaalada Hargeysa oo dawladda Soomaaliya iyo UN-ka sakaashanayaan oo wasiiru dawlaha hawlaha guud iyo ninka UN-ka u fadhiya ka wada hadlayeen oo ay maaragtay war-saxaafadeed ka qabteen hadalloodina waxaa ka mid ah sidaan wadooyinka ama casriyeenta dawladda Soomaaliya waxay dadaal badan ku bixinaysaa horumarka ama dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaan wadnaa wadooyin kala duwan oo ah kuwa magaalooyinka ka baxa ee hawiyada ah waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinaynaa agaasimaha hay'adda UNOPS Mr. Cala iyo tiimkiisa oo runtii maanta aan u fadhino ayadoo tahay maalin jimco ah saxiixa ama bilowga daraasadda iyo nashqadeynta wado 45 kilomitir ku dhow oo fayskiisa koowaad dhismaha uu noqonayo 23 kilomitir oo aan ka bilaabayno caasimadda Hargeysa ama Somaliland